soo dhawaada saaxiibayaal mowduuciga maanta wuxuu ku saabsan yahay dheecaanka ama hormoonka loo yaqaano testosterone marka uu levelka ama heerkii loogu talagalo uu ka hoos maro waxyaabaha loo isticmaali karo maadooyinka macdanaha uu jirka ama ninka ragga u baahan yahay inuu kor ugu soo qaado dhanka iraganimadiisa sidoo kale shaqooyinkii uu qabanayo testiska ama xiniyaha inay aada u wanaagsanaadaan ama kor ee u kacaan si raganimadiisa iyo awoodiisa jir ahaan ay soo laabato sida loo qaato noocyaday kala yihiin ayaan dul istaagi doonaa saaxiibayaal dhammaan waxaan idin leeyahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu inta aanan mowduucayga gudagelin marka hore youtube pagekayga iyo facebook pagekayga liketa followga subscribe-ka inaan laga hilmaamin waxyaabaha ugu horeeya ama maadooyinka ugu horeeya uu ninka ragga isticmaali karo korna usoo qaadi karo levelka ama testosteronka waxaa ugu horeeyo vitaminka loo yaqaano vitamin D. Vitamin D wuxuu ka mid yahay vitaminada ku howlgala kuna milma dhanka iyo fat soluble-ka milanka dufanta. sidoo kale vitamin D wuxuu ugu horeeyaa vitaminaadka jirka bani'aadanka gaar ahaan dhanka iraganimada dheecaamaadka ku shaqo leh ka qayb qaata soo saaristooda xoojintooda ee isticmaaladooda. vitamin D wuxuu kaloo ka qayb qaataa in marka ay samaysmayaan hab hindisidayaasha testosteronka uu ninka ragga uu leeyahay loona yaqaano gene expression marka ay samaysmayaan lana soo deynayo testosteronka dheecaankaas inuu ka qayb qaato soo deyntiisa samaysanka ay samaysmayaan laguna diyaarinayo xiniyaha dhexdooda gaar ahaan meesha loo yaqaano Leydig cells ama unugyada loo yaqaano Leydig cells. vitamin D ninka ragga kama maarmo isticmaaladiisa dhanka iyo testosteronka marka ay tahay faa'iidooyin badan ayuu ka saacidaa. sidoo kale vitamin D caafimaadka jirka waxyaabaha ugu horeeya uu ka qayb qaato waxaa ka mid ah adkaanshaha shaqaynta iyo koritaanka dhanka iyo murqaha lafaha adkaanshahooda ayaa waxyaabaha ugu badan ee uguna horeeya ay tahay. maadooyinka kale ama vitaminaadka kale ugu muhiimsan dhanka iraganimada waxaa ka mid ah maadada ama vitaminka loo yaqaano vitamin E. vitamin E wuxuu door aada iyo aada u muhiim badan uu ka qayb qaataa in uu habdifaac u sameeyo testosterone hormonka. shaqooyinka ugu muhiimsan vitamin E marka laga hadlayo habtaranka qofka ama ninka ragga wuxuu u sameeyaa wax loo yaqaano antioxidant in uu ka ilaaliyo haddii uu damage ama dhaawac uu soo gaarayo unugyada sameynayo dabcan testosteronka ama dheecaankaas soona deynayo kuna soo deynayo habqulqulka dhiigga. vitamin E isticmaalkiisa sidoo kale wuxuu kaloo ka yareeyaa in ay soo weerari karaan jirka bani'aadanka microorganisms infectionska bacteriada iyo viruska in ay waxyeeleeyaan habtaranka. vitamin E wuxuu kaloo sida guud ugu qayb qaataa in uu ilaaliyo habdifaaca jirka ama waxa loo yaqaano immunity-ga uu qofka uu leeyahay. vitamin E ninka ragga kama maarma marka laga hadlayo qaybaha kala duwan ee reproductive-ka soo saarista shahwaadka dheecaamaadka qaabilsan wuxuu ku leeyahay door aada iyo aada u muhiim badan qofka bani'aadankana in muddaha marka la joogo waxaa habboon inuu isticmaalo vitamin E maadooyinka uu ka samaysan yahay. ama sidoo kale marka laga hadlayo levelka testosterone waxyaabaha xoojinayo ama jirka bani'aadanka kor ugu qaadi karo levelkaas inuu aada u wanaagsanaado dhanka iraganimada waxaa ka mid ah maadada loo yaqaano zinc. zinc qofka bani'aadanka gaar ahaan ragga kama maarmaan levelka shaqaynta howlgalida shahwaadka dhacamaadka kontaroolo. zinc waxay ka mid tahay maadooyinka ugu horeeyo. sida guud maadada zinc waxay kontarooshaa ilaalisaa habdifaaca jirka uu leeyahay waxayna samaysaa qaab loo yaqaano antioxidant inay jirka ay ka difaacdo waxyaabaha soo weerari kara microorganismska gaar ahaan reproductive cellska unugyada qaabilsan dhanka iyo taranka xiniyaha ku yaalo prostate-ka iyo qaybaha kala duwan ee taranka qaabilsan inaysan daciifin shaqooyinkooduna ay aada u xoojiso. sidoo kale zinc waxyaabaha kale uu ka qayb qaato waxaa ka mid ah
inuu aad u saramariyo soo deynta dhacaanka loo yaqaano testosterone. sidoo kale zinc wuxuu kale uu ka qayb qaataa inuu xoojiyo uuna aad u adkeeyo shaqayntii uu qabanayo prostate glandka, kaasoo aan ognahay inuu ka qayb qaato soona daayo waxyaabo lagu nafaqeeyo dhanka iyo shahwaadka ragga. vitamin zinc ninka ragga kama maarmo, waxaa loo baahan yahay in muddaha marka uu joogo inuu supplementary ahaan u qaato isticmaali karana. sidoo kale zingiga waxaa lagu sheegaa inuu ka mid yahay maadooyinka ama macdanaha kor u qaadi karo sperma countiga, habka ama cufnaanta ee spermaha ama shahwaadka ee leedahay, qaab ahaan nooceeda inuu aad u wanaagsanaado, tiradeeda iyo tayadeeda inay noqoto mid aad u sareyso. sidoo kale maadada loo yaqaano magnesium waxay ka mid tahay maadooyinka saacida dhanka iyo taranka. maadada magnesium waxay had iyo jeer ee ka saacidaa dhanka iyo taranka in blood perfusionka habsocodka dhiigga ay ka yareyso waxyaabaha ku samaysmi karo qulqulka dhiigga. sidoo kale inay ka hortagto marka ee stress uu ku jiro qofka ama walwal iyo walbahaar iyo hurdo la-aan ay ku dhacdo, taasoo ay keeni karta in level testosteronku uu aad u hoos maro. magnesium qofka baniaadanka kama maarmo in muddaha markuu uu joogo, waxaa muhiim ah inuu qaato hab supplementary ahaan ama daawooyinka ay ku jirto magnesium. sidoo kale waxyaabaha ama vitaminaadka kale ay ka qayb qaadan kara in levelka testosterone kor ee u qaadaan ama ragonimada ay aad u xoojiyaan waxaa ka mid ah vitaminka loo yaqaano vitamin K. vitamin K wuxuu jirka uu ka ilaaliyaa in ay ku dhacaan clotting, in dhiigga uu fadhiisto ama xinjiraha ay ku bataan, taasoo saameyn iyo waxyeelo ku ah dhanka iyo taranka, dhiig fiicanna uusan gudbi karin, oxygenkii ama nutrientskii loogu baahnayo dhanka iyo xiniyaha inay aadaan, inay saameyn ay ku noqonayso levelka testosteronkana aan la soo deyni karin mid aad ugu filan dhanka iyo jirka. sidoo kale marka laga hadlayo vitamin K wuxuu kaloo uu sameeyaa ama jirka baniaadanka faa'iidooyinka uu ku leeyahay ay ka mid tahay calcium deposition, inuu ka qayb qaato muruqaha iyo lafaha calcium badan inuu geeyo, in doorka ugu weyn ay tahay dhankaas iyo muruqaha iyo lafaha, in doorkiisa ay ugu badan tahay mar walba inuu qaado uu gudbiyo calciumka inuu xareeyo dhanka iyo lafaha iyo muruqaha. sidoo kale maadooyinka ama vitaminaadka kale anfici karo dhanka iyo raganimada ama in testosteronka kor uu soo kaco waxaa ka mid ah vitamin B, gaar ahaan B6, B9 iyo B12. saddexdan vitamin waxay door aad iyo aad ugu muhiimsan ee ka qayb qaadan karaan dhanka iyo fertilityga, shahwaadka soo deyntooda, hormoneska shahwaadka qaabilsan inay kor u maraan ama kor sare maraan. sidoo kale in ay ka qayb qaataan in RBC-ga ama hemoglobin levelka mar walba uu aad u sare maro. vitamin B6, B12 iyo B9 waxay door aad iyo aad u weyn ay ku leeyihiin inay xoojiyaan testosteronka marka la sameynayo, sidoo kale soo deyntiisa qaybaha kala duwan ee dhiigga markuu uu marayo inuu gaaro qaybihii loogu talagalay. si gaara vitamin B12 iyo B9 waxay kaloo ka qayb qaataan soo deynta shaqogelinta habsocodka hemoglobin marka la sameynayo RBC-ga ama hemoglobinka qofku ku jiro xaddi badan iyo in ku filan in la soo daayo, taasoo ka dhigan in oxygen badan uu qofka uu heli karo, lana soo deyni karo testosterone aad u filan, kana howlgali kara qaybaha kala duwan ee jirka. sida guud qaybahan macdanaha iyo maadooyinka ama vitaminaadka aan ka soo hadalnay, vitamin D, vitamin E, vitamin A, vitamin K, macdanta loo yaqaano magnesium, sidoo kale maadada zinc iyo vitaminada B-ga gaar ahaan B6, B9 iyo B12. ragga wuxuu uu sameyn karaa ayagoo isku jiro inuu u qaato as tablet ahaan, wadi kara ama uu isticmaali kara in ku dhow 4 bilood, taasoo keeni karta isbedel dhanka iyo raganimada, korna u qaadi karta dhanka iyo shahwaadka soo deyntiisa, soo saarista iyo in la soo daayo shahwo ku filan, taasoo quality iyo quantity ahaana u anfacaysa dhanka iyo raganimada. isku jirka maadooyinkan ay isku jiraan inta badan waa la helaa, wuxuuna uu qofka uu ka qaadan karaa maalinkii hal xabo asagoo wadi kara ilaa iyo 4 bilood ama in ku siman ilaa iyo 4 bilood, taasoo ka dhigan tahay isbedel dhanka caafimaadka iyo raganimada inuu qofku uu dareemi doono. anigoo ah Dr. Maxamed Liibaan Maxamed, halkan ayaan kusoo gabagabaynaa.
waxaan idin leeyahay wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.